بروفيسورنا كان ديك إسكولة ده مقالة ميابوليس أنا أقويهن كان هذا هيستوريا إن أما تاريخ ده قبل ده وقوي ونا ده شيء قبل ده وقوي إلا ربع هذا هندت كي يباب كله هيو وحنكسر دوينا يا إن أقويهن حمد ما شيء أنا مريني يعني هو بحكي كده يرتاحون مريني يا أبو مركب وصل في كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جديين بوان السلام يا كلي وهابين جمعات هذا كي نقول ديرين مايو وأنا كلي مال شقيناي مركب مرتدى شرفت لك جديوان السلام يا سنة جورة خاتمه إن آديات بنيوهم بلينيا دردرتم في عن يد ذلك هذا وضان مرنا عندمين بلادن كنا وحويه قفك يسوي أقبلا دلية مبلا دلية قفك يسوي جميسك أقبلا وهم بقول جميسته قف سوي هذا وحرية ده أركها يعيدنا ما جميسن كرتو بس خاطمنا عيدين ما جميسن كرتو ولي ودنا لما جميسن لما نجميسن دور هلا إحنا يعني أستان بوتها يدون كوردن وحوي واحد وقتان وقتها سيد محمد عبد الله حسن إسماعيل مريا يتكلمين وقتها الجوجي إن ضد كبدن كودن ما فهم سنة أفريقيا وطن حري مجري إثيوبيا وواجد أبسين لورنا يو ليبيريا وقراتي يا حرها مركا يدو وقتها الجوجو ودون كودن لقميستو إيش لقميستو وطن أفريقيا لقميستو هل كان كواجا صعبي وهو هل كان تاريخ الجري ما تدا لفتي إثيوبيا أجيجي ودكتين إن لغة السيد تارو سيد محمد عبد الله حسن بوقت أفريقيا لقى شيء يقول دم بيكون قرنتاي تاريخه وحكى كشيء النقطة ماشي هو الرئيس ديار لقطة قيي ديار دي هو الرئيس إنجليز كنسلا النقطة مركا تاريخ المال في عندك كجرت أنا وانا ده نصيب ونك إن ما أنت طريقي ده من الصوت الله بحيو خاتم أنا سوه يسي يدك إيري يكون مبارك شرط سوه Thank you. Thank you very much. Thank you. And markaas sidaa iyo sidii leeg dadka reer awdal laftigoodu halgan dheer bay u soo galeen xorriyadda Soomaaliyeed iyo kuna oo kallay mataanaynu nahay waxyaalo badan baynu wadaagnaa saylac baa noo ahaan jirtay caasimad oo taariikhi ahayd oo kumiyaal sano soo jirtay saylac laftigeeda gumaysigii ingiriiska iyo faransiiska ayaa baabiiyey 1906 waxay kala saxeexdeen inaana dariiqna laga bixin tareenna laga bixin dekada saylac sidii bay ku baabaaday saylacna marka gumaysiga sida aynu uga soo wada horjeednay sida ay noo wada baabiiyey dee maanta cidina inaguma celin karto cidina inaguma qasbi karto cid Somaliland iyo British Somaliland inoo bixin kartana dee ka aqbali mayno lixdanada laftigoodii waxayna dadku ogeyn ka hor waxay moodaan waqooyigu inuu isku jiray uun 1884 ka hor 1840 ka hor dadku qabaa'il isgarab degan oo qolo waliba ay leedahay ogaaskooda iyo garaadadooda ay ahaayeen cid gumaysan jirtay ma jiro dad Soomaaliya oo iswada garab degan oo marka abaari dhacaan iyo dagaal dhacaan isu gurmada bay wada ahaayeen cid la gumaysan jiray iyo cid gumaysan jirtay ma jirto distriyadii oo qaybsanaa ama maamul goboleedyadii waqooyigu u qaabsanayeen 6 bay ahaayeen gobolka awdal ka mid buu ahaa oo Boorama Saylac district loo oran jiray way markii hore Saylac baa jirtay markii dambe Boorama abuurantay markii dambe labadii magac la isku daray laascaanood gooni bay ahayd oo dacid maamulaysa ma jirto iyaga is maamulay xitaa Ingiriisku markuu jiray ceerigaabo saas oo kale ahayd magaalo waliba saas ahayd oo Berbera iyo Burco iyo Hargeysa saas ahayd markii xorriyadda aynu qaadanay gobolladii waqooyiga laba laga dhigay oo labada hoos kale Burco iyo Hargeysa marka dad badan baa moodaa in wax la jiri jiray Somaliland la yiraahdo jiri jiray ay dad badan baa moodaa ka dhaadhacsan tahay waana been oo yani British Somaliland baa jiray Italian Somaliland baa jiray French Somaliland baa jiray marka wada toran Soomaali baa soo haray
layse waqooyi jiri oo gooni ahaa oo ahaa muxuu ahaa qaran jiri ma jirin waa been maantana in wixii oo kale too la keeno la yidhaahdo qaran baa jirayo waa been waxa laga yaabaa dad badan inay u qaataan inay waxaan qabyaalad tahay maaha qabyaalad siyaasiyiinta arrintaa ku hadlaaya iyo qabiil sheegaya colaad iyo colaad una hayna ma jirto beesha dhexe cadaawad naga dhaxaysa inay ma jirto layse waxa weeye dadka waxa beenta u sheegaya oo dadka jarka ka tuuraya waa siyaasiyiinta iyagu raba danahooda shakhsiga ah weeye marka waxaan leeyahay siyaasiyiinta caqligooda ha u soo noqdo garaad ha yeeshaan in ta kale waxaan nii sheegayaa in halgankaa ka socda muxuu ahaa gobolada bariga oo dhan ee khaatimo ka socda kaa kulleeg baa ka socda muxuu ahaa in awdalna in halgankaasi ma aha mid colaada ma aha waa mid nabadayna waayo waxa weeye qofka adiga raba inuu magacyo kuu bixiyo ee raba inuu majaraha ku habaabiyo oo qaran kale kaa dhigo qofkaasaa dee mogtay dagaalka wada layse dadka khaatumo iyo dadka awdal oo dhan waxay rabaan waa nabad waxay rabaan dhulkooda inay horumarsadaan sidaa imika looga dhisay buuhoodle dariiqa looga sameeyey ee dekada airportka looga sameeyey diyaaradu ku soo degayaan ee taleex looga sameeyey haddii ay dadkaasi gacantooda ku jiri lahayd muxuu ahaa maamulkooda oo qarannimadooda si dhab ay u haysan lahaayeen waxay noqon lahaayeen meelaha adduunka ugu hodansan bay noqon lahaayeen buuhoodle anu waan arkay laascaanoodna waan arkay waa dhul ku habboon inay noqdaan laamiyada ugu cajiibsanee internationalka waa laga dhisi karaa oo iskaga gooshaan diyaaraduhu afriki iyo muxuu ahaa asia iyo latin america meel walba waa dhul aad u ballaaran waana dhul ku habboon dhul laga dhiso muxuu ahaa dhul ay diyaaraduhu fadhiisan karaan oo meel kasta iskaga gooshi karaan mustaqbalkana dee kolley waa dhici oo saasoo kale noqonaysaa awda laftigeedu waxay ku dhowdahay magaalooyinka ugu waaweynaa Ethiopia oo dhan oo dadka ugu badan ay ku nool yihiin jigjiga u jirta 50 mayl magaalada Boorama harar baa u jirta muxuu ahaa 60 mayl diridaba agteeda naasir magaalooyinka ugu waaweyn oo dhan baa Ethiopia dekadihii moogtahay oo badda haddii halkaa lagu wada taxo waxay noqon kartaa iyada meelaha adduunka wada baaxisro oo dhan weligeedna way ahaan jirtay marka annagu kulley labadeena gruuba labadeena kooxoodba kulley Soomaali horumar baynu rabnaa geeska Afrika horumar baynu wada rabnaa wanaag baynu rabnaa layse waxaynu rajaynaynaa 23 sano dhibtu socdaan dawladda Soomaaliyeed kama yahdin hadal qura kama jeedin waa dhaweyd baa waxa dhacday in arrimaha soo baxeen macdan laga guraayo in muxuu ahaa gobolka Awdal oo ay rabeen groupkan Hargeysa 500 kun oo tan oo macdan inay ka saaraan oo ay moogtahay u dhoofiyaan China oo Chinese kansadeen markaas qura iyo dawladda Soomaaliyeed ee wadanka xukuumaysa ka hadasho waana arrin gefarno hantii in markii macdan la soo hadal qaaday dadka laga hadlo macdanta laysa dadkii la iloobo oo dibta loo geysan la iloobo dibta lagu hayo muxuu ahaa in taleex la iloobo dibta lagu hayo muxuu ahaa saaxdheer la iloobo dibta dadka buuhood la ku nool la iloobo marka dad badan baa waxay yiraahdeen in Soomaaliland waa muqaddas anu waxaan leeyahay dadku oo la caburiyaa muqaddasnimo maaha dadku oo hantidooda la boobaa muqaddasnimo maaha technique intoo la soo daba taxo kulba magaalo lagu duulo muqaddasnimo maaha dadka Boorama ku nool oo saqda dhexe guryaha loogu soo dhaato muqaddasnimo maaha dadku oo intoo la afqaado been laga sheego intii iyagoo qori lagu hayo muqaddasnimo maaha muqaddasnimo waxa weeye nabadda muqaddasnimo wanaaga muqaddasnimo dadka geeska Afrika oo dhan oo wada baayac misrayo adduunka la mid ah muqaddasnimo diinteena muqaddasa dadka inaan la leeynin baa muqaddasa dadka inaan la dhicin baa muqaddasa dadka intoo lacag been loo abuuro lacagtooda lagu caaydiyo iyo xaraana dadka in dekadahooda laga horjoogsado iyo xaraana imika waxaan nii sheegayaa gobolka Awdal xeebihiisa oo dhan shirkado intoo la siiyay maraakiib adduunka ka kala yimiday oo wadano badan ka yimiday iyo intoo xaalufiyeen xitaa dhulkii uu ku dhalaayay muxuu ahaa kalluunku la jabinaya oo la dubnayo la iibgeynaya adduunka loo iibgeynaya dadkii masaakiinta ahaa ee doonyahooda dhulka ka kalluumaysanay yaa loo diiday la leeyahay ka kalluumaysanna dhulka weligood ku noolaayeen waxa kale oo xitaa jirta waxaas oo dhan waxa loo duldhigay dadkii gaaladu waxay yiraahdeen hawan ka bixi and yani and to add
موقتها insult to an injury موقتها يعني يضو عيب لوgu daray waliba dadkii موقتay muxuu hadana موقتay intoo la qoobay iyadii laftigeeda wax laga yaabo noqotay intoo nin burca laga keenay la leeyahay saylac baa lagu caleema saaraya dhararowgi dadka caleema saaraya waa askartii dadka xooga ku haystay iyo dumarkii iyo kuwa qabeen kale waxa kaloo jirto yaaba waxa kaloo yaabiyadna sidii goordhoodba la sheegay cabdifshid ay sheegayeen dad badan ay sheegayeen intoo gaariyaal la soo daba dhigo iyo technical la soo daba dhigo oo kumayaal qof oo yani gaariyaal lagu wato oo laga keenayo Hargeysa intoo kolba meel loogu qodbadayo la leeyahay dadkii awdal baan la hadalnay oo TV-da laga soo deynay adduunka been loo sheegayo marka beenta ka socotay bariga laga sameeynaya iyo galbeedka laga sameeyaa marka walaalayaal waad maadsantihiin kulli gidigeen waa la xoroobi waa guushana waa inaga. Thank you.